شفاء لروحي وحبل المتين bulshoy waxa la idinku bishaareynayaa xarunta الهلال cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka waalida ceedo wareerka umusibyaanka gabdhaha wejiga ka halaabay baabasiirka dhagaxa kiliyaha gala xoojinta raganimada isha dhiig karka sokorta naxdinta kili xanuunka waswaaska madax xanuunka jinka dhalmala'aanta dhasha Allah bixiye toobinta iyo kuwa kale oo fara badan xaruntuna waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka gaaska السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى سيدي أنكو بلنسانين برنامج يدي إنو سعودي كصاحب سنة كورتقع عذر هذا قود قارهان وحان كود حجرني إناد كورتقتو أما آذان كسبانين عذر كاللو يقانو حاسدك إيا إيشا وحيالها اللو يقانو هوري وحان uga hadalnay ilaa 8 qodob oo qofka asagu isha ku kasban karo kuna soo jiidan karo maanta waxaan idin hayaa 4 qodob oo kale 4taas qodob oo qofka asagu uu cudurka ku kasban karo kuna soo jiidan karo qodobka ugu horeeya waxa weeye dadka sida qaalibka ah Soomaaliya hadaynu nahay waxaa jira wax iska fudud oo sameeyno aan ku kasban karno cudur arintaasi oo runtii sharciga islaamka markii la fiiriyana in badan uu ka digay oo uu maaragtay akhlaaq ahaan iyo muro ahaan sharcigu inta badan oga hadlay ayaa haddana dhanka kale caafimaad ahaan qofka uu cudur ka qaadi karaa qodobkaasi waxa weeyaan qofka inuu caadeysto oo uu joogteeyo mar walba inuu wax ku cuno banaanka meelaha banaanka ah ee dadku ay fariistaan masaakiintu ay joogaan oo ay baahan yihiin in uu asaga wax iskaga cuno mar walba inuu caadeysto asagoo markaasna dadkii masaakiinta ahaa wax ka siinaynin arinta ayada ah waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka uu ku kasban karo si fudud inay il ugu dhacdo ishaasna uu ka qaado cudur aad u dhib badan daawadiisuna helitaankeedu ay aad u adkaanayso marka walaalka muslimka iyo walaasha muslimadda waxaan u sheegaynaa in ay caruurtooda ku tarbiyayaan in aysan banaanka wax ku cunin meel asturan inay wax ku cunaan inay u sheegaan mar walba ku celceliyaan hadii mar intay u sheegaan ay caruurta ka hoos qaadi waayaan wixii ayaga ahaa inay ku celceliyaan maxaa yeelay maskaxda wixii lagu celceliyo marka dambe way qaadataa qodobkaas runtii waa qodob aad muhiim ah waalidiinta marka waxaan u sheegayaa in ay ilmahooda ku tarbiyayaan in ay banaanka aysan waxba ku cunin qodobka kale waxa weeye meelaha fadhi ku dirirka ah ee dadku ay iskugu yimaadaan inta badan siyaasadda looga hadlo dhalinyaradu ay ku sheekaysato odayaashu ay ku sheekaystaan siyaasiyiintu ay isugu yimaadaan mararka qaar waxa dhacdo in lagu doodo qof marka haddii aad adigu tahay qof aftahan ah oo hadalka helo og oo markaas dood ay idin dhex marto qof kale oo asagu markaa hadalkii iyo pointiyadii aan heli karin ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida ayada ah uu abuuray inaad ku tiigato oo wixii hadalkii garta u lahaa garta intaad daba mariso adiga markaas aad qofkii dhulka ku jiido tan ayada waxay koos garaynaysaa oo sababaysaa inay ilku asiibto oo qofkii uu ka naxo hadallada aad adeegsanaysid inuu ka naxo meelaha garta la isugu yimaado oo laba qof haday wax dhex marto lagu doodahayo oo kale haday maxkamad tahay hadii maarta meel kale oo garta caadiga Soomaalida meelaha ay wax ku kala goostaan ay tahay inaad isticmaasho erayo wanaagsan adigoo xaqaaga raadsanayo inaad u isticmaasho erayo wanaagsan oo waxba ka haleynaynin cidna aan lid ku ahayn xaqaagina aad soo dhacsato inaad isticmaasho way hadii aadan isticmaalin si xad gudub hadallada aad u tiraahdo
waxaa dhici karta halkaasi inaad il ka soo qaado cudurna ay kugu noqoto sida awgeed waanu idinkaga digaynaa arrinta ayada insha allahu tacaala inaad ka wantoodeen waana ka hortag cudurrada isha iyo waxyaalaha la midka ah